Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Halkani waa Sahan Academy, hoyga barashada aqoonta iyo xirfadaha. Weli waxaan ku guda jirnaa course-ka inuu ugu magac darnay MS Windows 10 oo markaasi kamid ah courses-ka inuu ku qaadanayno Essentials of Computer Applications oo ECA ah. Waxaan maraynaa lesson 2 oo markaasi casharka labaad. Casharkana waxaynu kaga hadlaynaa taskbar waxa uu yahay iyo sidoo kale waxyaabo isaga ku saabsan sida loo isticmaalo iyo ayaan casharkan uga hadli doonaa. Waxaan filaa marka casharkii hore markaasi overview-ga ahaa in si fiican loo fahmay. Haddii ay jiraan su'aalo ku saabsan casharkaasina waad ina soo weydiin kartaa WhatsApp, Telegram ama email eed nagala soo hadli kartaa adigoo emailkaaga ama fariintaada cinwaan uga dhigayo casharka aad rabto inaad su'aal inaga weydiiso ama qaybta aad rabto inaad su'aal inaga weydiiso. Sidoo kale waxaan filaa talooyinka aan ka jeediyay casharkii hore ama muuqaalkii hore la qaatay ama hadda kadib la qaadan doono taa ku saabsanayd in cilmigan waxyaabo badan oo ku saabsan in marka la raadiyo waayo dhabaha kaliya ku guuleysan kartaa waxay tahay in wax badan aad raadiso wax badan aad akhriso. أنا قد أقول مركز كورس هو MS Windows أو قار أهان وحنو كوبرنا version 10 lesson 2 أو مركز 10 كلابات 10 كنا وحنو كوبرن دونا task bar وح ويهي يعني مركز كوبرن دونا. waxaan casharkii hore kaga soo hadalay wax la yiraahdo overview. Waxaan soo sheegnay casharkii hore in qaybtan hoose lagu magacaabo taskbar. waxaan ku dari lahay qaybtan oo calaamadan ah waxa la yiraahdaa window ama start menu ayaa markaasi lagu magacaaba. Marka keyboardka la joogane waxa u taagan windows key ayaa marka u taagan calaamadaasi waxa la yiraahdaa oo geeska xigta waxa la yiraahdaa start menu ayaa marka lagu magacaaba. So marka qaybtan hoose ama qayb kore ku noqon karta ama dhinacay noqon karta mar walba waa la sameyn karaa waxa la yiraahdaa taskbar ayaa la yiraahdaa. So marka taskbarka waxa loo isticmaalaa in lagu soo dhaweysto programyada yani ugu badan ee markaas la isticmaalo. Aniga tusaale programyada la isticmaalo Photoshop, Sniping Tool, Chroma, My Files, Internet Explorer yani waxa way meel kale ma aadayo oo mar waliba meeshan ay markaas yaalan hatta qaybo kala dan ku jira hatta meeshan waa gali karaa way fileska ama programyada oo markaasi yaala taskbarka. So waxaan markaasi sameynaynaa waxa la yiraahdo maxay taskbarka waynu ka shaqeynaynaa. Taskbarka waxa la sameyn karaa kor ayaa la geyn karaa, dhinacna ayaa la geyn karaa, dhinacna ayaa la geyn karaa sidoo kale yani dhanka midig iyo dhanka bidix way. So marka hadda hoos ayuu yaala aniga waxaan jeclahay mar walba inuu kor ii saarnaado. Marka si taskbarkaaga aad u geyso qayb sare ama bidix ama midig waxaad markaasi tagaysaa meel banaan oo taskbarka kamid ah ayaa waxaad leedahay right click. waa soo sheegnay right click-ga waxaan taabanaynaa farta dheer markaasi dhanka midig adiga ka xigta right click ayaa leedahay ama waad click ayaa siinaysaa kadib waxaad taabanaysaa meeshan ay ku qoran tahay taskbar setting ayaa dooranaysaa. Marka aad doorato kadib waxa ku soo baxaya marka shaashad oo markaasi meelo markaasi off iyo on ay tahay. So marka taskbarka hadii aad rabto inaad geyso meel sare hadda tusaale waxaad dooran qaybta hoose button ayaa dooran taskbar location on screen meeshan yani button ayaa dooran oo markaasi ah hoos. Marka kor hadii aad rabto meeshaas aad ku dhufanaysaa. Hadii aad rabto kor hadii aad rabto waxaad ku dhufanaysaa top ayaad ku dhufanaysaa. waa kaas durbaba wuxuu tagay qaybta sare ayuu tagay. Hadii aad rabto qaybta midig hadii aad rabtana right ayaad dooranaysaa. Hadii qaybta bidix aad rabtana left ayaad dooranaysaa. Hadda topka ayaan markaasi geystay. Sidoo kale taskbarka waxaad sameyn kartaa waad qarin kartaa waadna soo muujin kartaa. Si aad u soo muujiso aadna u qariso waxaad markaasi meeshan ofta ah hadeertan waa xeeran yahay way yani waxa way qarsoomidiisa waa automatically hide the taskbar in desktop mode يعني قاري سي اوتوماتيكا او قاري واي markaan aan furno oo on aan dhahno taskbarkii waa qarsooma laakiin markaan dul tagno waa soo muuqana yani waxa way hadii hoos u yaalo hoos hadii aan tagno waa soo muuqana way hadii markaasi off aan dhahnana waa markaasi sidiisu u yaala yani sidiisi hore ayuu markaasi oo noqona. Sidoo kale taskbarka waxa markaasi laga dhigi karaa mid yani iconada ama programyada saaran kuwa waaweyn ayaa laga dhigi karaa oo meeshan onta hada small use small taskbar buttons batonada oo markaasi taskbarka ah small waaye hadda on markay tahay waa small ama laakiin hadii off laga dhigo waxay noqonayaan large ay noqonayaan. Hadda waa large marka small keyga ayaan u soo noqonaa oo small ka ah. So sidaas ayaa markaasi loo isticmaalaa taskbarka. waxaan filaa markayna casharkan wax badan laga fahmay. inta ayaan ku soo gabagabeynayna casharkan intaynu ku kulmi doonaa casharka xigana waxaan idinkaga tagaynaa sida ay nabadiino. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.